السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كلنتو عن مركله وأنا ودكت صدام حسين maanta waxaan idin wadaa toddoba cunto aad isticmaali kartid xilliga markii lagu qalo kadib cunuga lagu qalo kadib cunooyinka aad isticmaali kartid iyo markaad caadiga aad u dhashid cunooyinka lagaga baahan yahay inaad isticmaashid oo muhiimka ku ah oo inaad waqti walba isticmaashid loo baahan yahay ayaan halkan kugu soo gudbin doonaa fadlan channelka kiilowina subscribe like share ka haddana aan ugu galno barnaamijkii oo full ah markaad dhashid kadib jirkaagu wuxuu galayaa deficit oo maaragtay qalliin lagu sameeyo mise oo C-section lagu sameeyo mise marka aad maaragtay caadi aad u dhashid jirkaagu wuxuu galayaa isdhimis buu galaa jirkaagu requirement badan buu u baahan yahay waa inuu macdan badan uu helo waa inuu maaragtay uu helo minerals badan inuu helo waa multivitamin badan ayaa ka lumaya xilliga aad dhashid kadib maadaama waxa ku keenaya jirkaaga demandkiisa ayaa badanaya cunugii ayaa demand badan kaaga baahan waxyaabooyin badan maaragtay qaybo badan cunugii ayaa u baahan qaybo kalena waxa u baahan jirkaaga sidii uu maaragtay shaqaynta caadiga uu ku shaqayn lahaa ayuu u baahan yahay marka maalinkii waxa laga rabaa inaad qaadatid ugu yaraan marka aad nuujinaysid hooyo nuujinaya aad tahay ugu yaraan waa inaad qaadatid 400 ilaa 500 oo kilocalories ah inaad isticmaashid way marka ay important u tahay arintani maaragtay oo loo yaqaano macdantani maxaad ugu baahan tahay cunooyinkani maxaad ugu baahan tahay sababtu waa maxay sababtu koowaad waxa waaye inaad maaragtay cunugini cunto dheelitiran macdan dheelitiran inuu jirkii hooyadii ayuu ka qaataa waa inuu helo marka macdan isku dheelitiran iyo cunno dheelitiran waa inuu helo oo maaragtay dhanka caanaha uu ka helo jirkiisina difaacigiisu uu ku noqdo daily normal daily uu okay noqdo hooyada markii la qalayno sidoo kale wuxuu baahan tahay jirkeeda inuu soo qabsado oo waxyaabooyin badan ay maaragtay ay ka boogtii ku halaabeen jirkeeda uu soo qabsado murqaheeda ay dhismaan caafimaadkeeda uu taaganaado maaragtay uu caadi ah marka waxaan wadal ayaa maaragtay ku keenaysa inaad cunooyinkani aad joogteen aad ka dhigtid waqti walba aad qaadatid balance diet marka cunada balance diet oo dheelitiran haddaad maalinka isticmaashid oo xilliga aad dhashay mise xilliga lagu qalay cunuga aad dhashay waana lagu qalay cunooyinkan aad qaadatid waxaad ka helaysaa macro iyo micronutrients labadaba waad ka helaysaa oo cunugaaga koritaankana ka caawinaya adigana maaragtay kabsashadaada iyo boogahaaga iyo idil ku boogdhayo maaragtay ka qayb qaadanaya cunada koowaad waa inaad ku dadaashid loo baahan yahay waxa waa proteinka marka maxaad ka helaysaa proteinkas waxaad ka helaysaa ama muxuu jirkaaga ka qabanaya cunooyinka proteinka leh haddaad isticmaashid wuxuu ku qabanaya waxa waaye wuxuu ka caawinayaa maaragtay inuu unugyo cusub oo soo saaro proteinka wuxuu ka